Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda ganacsadaha weyn ee Jack Ma. Jack Ma waa 54 jir ku dhashay wadanka China. Waa ganacsadaha leh shirkadda Alibaba. Jack Ma intuusan ganacsade noqonin wuxuu ahaa mid shaqooyin badan ku soo fashilmay. Wuxuu 3 jeer ku fashilmay inuu ka qalin jabiyo college-ku dhiganayay. Dadaal iyo juhdi badan kadib wuxuu ku guuleystay inuu college-ka ka qalin jabiyo markii afaraad. Markaas kadib wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo, laakiin way ka diideen inay shaqada siiyaan. Markuu codsiyo badan oo shaqo ah u dirsaday meelo kala duwan ee loo diiday ayaa wuxuu go'aansaday inuu shaqo macallinnimo ah raadsado. Wuxuuna 1988 ilaa 1993 uu ahaa macallin maadada English ka dhiga, isagoo mushaarkiisu ahaa wax ka yar $10. Jack Ma kuma qanacsaneen shaqadiisa. Wuxuu go'aansaday inuu aado dalka Mareykanka si uu u helo nolol ka fiican tan uu ku nool yahay. Markuu meesha tagay wuxuu ka bartay kombiyuutarka iyo IT-ga. Kombiyuutarka barashadiisa aad ayuu u jeclaa. Ugu dambeyntiina wuxuu aasaasay website-ka caanka ah ee Alibaba, taasi oo u saamaxday in ganacsadayaasha iyo shirkadaha ay ku kala ganacsadaan iskuna dhaafsadaan alaabtooda si online ah. Jack Ma waa ninka ugu taajirsan dalka China, hantidiisana waa $44 bilyan.